waddankan Ingiriiska ayaa waxa aad looga xusaa ciidamadii ku dhintay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad oo dunida kuwaas oo ay kala qayb badeen rag badan oo soo reer Soomaaliland xuska oo uu ka qayb galay safiirka Soomaaliland u fadhiya waddankan Ingiriiska mudane Cali Aadan waxay u dhacday sida tan dadkii ku geeriyooday dagaaladii dunida ee koowaad iyo kii labaad oo had iyo jeer la yiraahdo Remembrance Day waa maalinta ay calanka yar iyo caleenta yar ee u baxaa garabka u Suudaan dadkan Ingiriisku dagaaladaas waxa jiray dad reer Soomaaliland oo fara badan oo qayb libaax ka qaatay oo aanu anaguna maanta halkan u nimi inaanu u faataxayno iyagoo ay aamusan cadaan anagu waxaanu u nimi halkan inaanu xusuusano muwaadiniinta reer Soomaaliland oo aanu halkan faataxada uga maro oo aanu dawladda Ingiriiskana ogeysiino dadkii reer Soomaaliland ee u soo halgamay boqortooyada iyo British Empire ee ka soo qayb qaatay wixii halgan ahaa ay soo galeen ay ku dhiseen Britain tamaanta jirta inay xusuusnaadaan inay ogaadaan inay ku tala galaan inay wax la qabtaan oo ay muujiyaan xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeyay dalka Ingiriiska ama Britain iyo dadka reer Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland runtii waa maalin taariikhi ah waa 2013 waa taariikhda maalinta loo yaqaano Remembrance Day ee dalkan Ingiriiska Remembrance Day waxay ka taagan tahay maalinta Ingiriisku xuso dadkii ku soo dhintay dagaaladii adduunka kii koowaad iyo kii labaadba iyo kuwii ka dambeeyayba oo ay ku xasuustaan dadkii u dagaalamay dalka Ingiriiska iyo boqoradda marka Remembrance Day-gan maanta reer Soomaaliland taariikh buu yahay sababtu taariikh ugu yahay maalintani taariikh ugu tahay dadka reer Soomaaliland ee degan dalkan Ingiriiska waxa weeyaan waa markii ugu horeysay ee la xuso dadkii reer Soomaaliland raggii reer Soomaaliland ee ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee qaybta ka ahaa ciidamadii Ingiriiska ee ka dagaalamayay frontiyada kala duwan haday tahay bariga fog Burma haday tahay bariga Afrika oo campaignkii East Africa campaign la yiraahdo Talyaaniga lagaga xoreeyay Somaliland iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya iyo haddii ay tahay Europe ay ka wada qayb galeen oo ay qaar badan ku nafwaayeen sidaa daraadeed bay u tahay maalin taariikhi oo runtii ay tahay inaynu xusno hore umaynu xusi jirin laakiin runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo ilaahay ka baryayaa inuu ka jazaaysiiyo walaalaheena Sahan Society muwaadiniin TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada London